قاعد بنشوفه ثم نكون في جنة سي يبقى معان ولا لا وزير ضدكم مساسي ولا هاي دولة شقينية وسبب قارج ما أنت بدل معارض بهاي ساعات قشن قبرنا زحطة قشن قلوب يجني جدا qarannimo waxaa helaa qoyskii walaala qarannimo waxaa helaa qoyskii walaala qaybsada dhibaatadu dhaqaraara gumaysiga qaybsada dhibaatadu dhaqaraara gumaysiga qoonso cadawaha iyo ku dhaafin khayrka qoonso cadawaha iyo ku dhaafin khayrka quudka isticmaar inuu yahay xalaal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان نجد دعوانيسان وتيفيجا عدك شعبك وأمانة يدينكو هاينو وزيركي هراء حلقي دولتي صوماليا وها وزيرك قمشح هذا يدور شوكته وزير كسر دمو تيفيجا عدك شعبك. بسم الله الرحمن الرحيم. وكله وهاي أدبان خصامية وأنه ما صنتهاي سيدا شرف تلادي شدوسي. صح. ما شاء الله وعنده وهاي. وزير واحد هانتي وزيرك قمشح هذا يدور شوكته حلقي كعانكي دولتي صوماليا. بلدتك وشيء وحي أقبل ترتي حلقي هذا وزيرك هاي. dadku way ku daawanayaan dad badan way ku garanayaan oo xilliga wasiirka ay wada shaqeynayaan way garanayaan dadku way garanayaan bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa salaamantiin dhamaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ku sugantiin haddii aan u soo noqdo su'aashaada jawaabteeda waa sax waxaan ahaa wasiirkii hore qamshaxdii iyo duurjoogta waqtigii rejiimka dalka haystay waxaan ka mid ahaa wasiiradii sida gaarka isha gaarka loo eegi jiray oo howlahooda lagu mashquulsanaa mucaarad baan ahaa horta anigu waqtigaas wax badan oo aanu qabanay baa jirtay oo maxaad qabateen maxaad waddanka u qabateen oo la taaban karaayo maanta dadka u sheegaysaan waddanka waxaan umaleeyaa waqtigaa horta inaad maad dhalan laakiin waxa weeye wixii aanu qabanay dalka iyo dadku way ka muuqdeen ولو ده النظام مخدنا أو نظام معججة أو ميليتري ودلك هيستي بس واحد بدل ما نقولني ودلك كان بسني ولو معارضني ما نشتي وأنو محنها معارض ومركان ها وزير كقمش حد يدور شوكتا حتى يدور شوكتا هو اللي يجري صوبته معارض مانها هي سياسة ده أنا كنت شفتها مركان حتى حوالها النور بندوفين شري ومرة وزير كدور شوكتا حوالها النور حولها نور يوم تجمع بندون مراكب ولا ساجي سلوا سعودية هدو وذلك دب لوجو سعودية. مركب وزير محد ذات كله جوينيسين اللي ذات صومالي باتين وطنيين باتين دولة دي لو شقينيسين ليه على الدولة دي بعد مقرن ساي هذا لقطة قبنيسين ميال ورا كريم ذات وطنيين متي. ماي وطنيين واحد لكن عارض بان حاصوته معارض كوحة نين دبادو بحي حبة سوري ديا ينين ذلك جوديش يسمى معارض كوحة صوته وحول بعنا وحنا لهم مقدين واحد مدحويه ذلك محاسيات برا إلها ونحرسته ومسؤولها أولها مركب حقوق خصبنا إنه معارض نقولنا وأنا مركب واحد استوى أن كله جوي كرنو حكومة ديسا ونقص أفشار كرنو ونقص أفشارنا مركب قاعد حولها بروسيل كان مركب قاعد كدور شوكته ثم نقول دور شرني سي أي أوبا بعان أو لا ده أنا يا جاي كينيا مرودي يو قريض يدير كينيا يا جاي أنا جاي وحيالها معارض كان قبطي أو معارض وين الأكل وأيدي بكم ده ميادين كبقين دولة ديدن وقاتو ليدن حلو ليدن ديلو ميادين كبقين اللي دولة اللي قاعد تفتي دولة حب ضم يعني سياسة باجتي سياسة وانا منافقة كاملة مركب واحد شفتي وقتي
afkaan macaani jirnay waanu qosli jirnay hoostana lugooyaan ka wadnay waxyaalo badan oo nagu khalday baa jirta markii la dhisayay mashruucii la oran jiray waanu daawo nin weyn baan ahay mashruucii la oran jiray waxaa la oran jiray mashruuc faanoole dadkii lugooyay baa ka mid ahaa maxaa sabraalon xusmarku lahaa faanoole fargamo qodna dadkii lugu haystay ee sibraha iyo mashruuca wadanka baananu ka mid ahaa oo mucaaradka ah waanu ku ammaanaa wasiir dadku masaasay wada ahaayeen dawladda u shaqeynaya masabad gaaraya bay dadku inuu jirtay dawladda iska raacsan oo iska daciif waa jiray laakiin dadka inta badan mucaarad bahan saanta qashinka gurunaysa xitaa qashinka loo bay gelin jirtay oo mucaarad bay ahayd wadaday qashin ku soo joogi jirtay mucaaradnimadeeda ku muujin jirtay imika maxaad qabataa wasiir hadda waxaan ku noolahay wadamada Australia baan ku noolahay waad aragtaa waxaan ku noolahay inta badan Mareykanka ka soo guuray mar labaad baan Yurub iska dhiibay waa sir inna washeegin adiga ku horow bahdi yareedna waan keenay waxaan ku noolahay kamuunkan ka shaqeeya qaybta arrimaha bulshada iyo isdhexgalka ka shaqeeya waan ku faraxsanahay alxamdulillah dadna wax badan baan u soo hadda dadka ma lugooysaa sidii ma ku shaqeysaa may lugooyo ma ahayn macnaha xumanayaa in yar baa tahay saxaafada kugu cusub lugooyaha dhihin may sida saan ka wada yacni wixii hawsheeda xagga ka qaban jirtay hadda ma ka qabataa hadda waa sii ballaaratay awal waxay ahayd regime baa wadanka haystay dad gaar ah wadanka military baa haystay dal military haystay waxa laakiin hadda xoolaha waxa moodaa in wadanka si ballaadho qof waliba meeshiisii uu tagay siyaasiyiinta kamid ah fadhiga laga kacaa wasiirkii waxaan qoranahay reerkayga iyo dadkayga waxaan qoranahay mujaahid oo dalka wax badan usoo halgamay fadhiga laga kacaa jaariyadaha wadankan Yurubna gudoomiye ku xigeen baan ahay nin kale jamraal laga sareeyay baa jira waxyaalaha aan soo qabanay faylashan ku qoran yihiin waxa kamid ah deerooyinkii iyo ugaadhi aan Kenya u gudbinay ilaa Mozambique bay waxa gorayadii gaadhay Soomaaliya dadkii saaray baan kamid ahaa anigu oo joogta eriyay xabadihii iyo dagaalkii dhacay wax badan oo dhibaato waa jirtay laakiin wax badan baan ka badbaadin oo regime-kii baan ka badbaadin haddana insha Allah ma ku tala jirtaa inaad wadankii tagto siyaasadda Soomaaliya aad gasho waxa weeye wadun baan naga celinaya taa siyaasadda waa galaynaa waa la talinaynaa madaxweynaha hadda wadanka jooga inkastoo uu nin yar yahay oo magaranaysaa maamulada waxa weeye wadanka waa ballaadhinaynaa wadanku hal mid buu ahaan jiray wadanku hadda wuu ballaadhay waana marka waxyaalo badan baan soo dhaweynaynaa waxaan soo dhaweynaynaa qof walba inuu xorriyatul qowlkan soo dhaweynaynaa wasiir maxaad jeceshahay nin sidee ah inuu Soomaaliya qabsado ma nin awood badan oo xoog badan mise nin garanaysaa iska miskiino oo dadka u naxariisto oo miskiino oo wax laga fushan karo maxaad jeceshahay dalku dictator ma baahna in dadka laayeen ma baahna dalku wuxuu baahay nin dhalinyaro ah odayaasha dib ugu soo noqdo odayaasha la tashada oo odayaasha anoo kala ay la taliyaan oo siyaasadda u sheegaan oo wax badan aan kula talino maadaama rug cadaa wax badan soo taray wax badanna soo iska qabtay waan isku caabinay wax badan baanu caabinay oo sibrahaanu haynay Soomaaliya in aanay ninkan maamulku sinaan hore u kacin baanu sibrahayn rag ku guuleystay baan kamid ahaa kaas wuxuu ahaa wasiirkii hore ee qamshaxda iyo duurjoogta ee xilligii dawladii Soomaaliya ee kacaankii wasiirku sidoo noo sheegay wax badan buu soo qabtay oo ma garanaysaa la oran karo waa wax qabad wuxuuna kamid ahaa dadkii mucaaradka ahaa ee dawladda ka soo horjeeday maadaama uuna la shaqeynayay dawladda uu la shaqeynayay wuuna duminayay sidoo noo sheegay ma garanaysaa hawlahaas soo qabtay inta aan ma garanaysaa hawada ku kulmi doono ama aanu dad ma garanaysaa saan oo kale wasiire ahaan jiray aanu maxay tahay wareysan doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgeliyo iyo nolol kulantay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hawqaadan qudka isticmaalinu yahay xalaal qorto laga jaraa yadhaantii ha qaadan qorto laga jaraa yadhaantii ha qaadan qaan weeye ha qaadan qurux
qaan weeye ha qaadan qurux male ha qaadan qiil buu ka dhigan ha qaadan qaan weeye ha qaadan qurux male ha qaadan qaan weeye ha qaadan qurux male ha qaadan qiil buu ka dhigan ha qaadan qaniyada gumaysiga qoonkii xanuunsaday qaniyada gumaysiga qoonkii xanuunsaday waa kuwa qabowgiyo qayawacan kuwada nool waa kuwa qabowgiyo qayawacan kuwada nool qiira laga rabaa qabanqaabo gobanimo qiira laga rabaa qabanqaabo gobanimo hawqaadan qudka isticmaar inuu yahay xalaal qorto laga jaraa yadhaantii ha qaadan qorto laga jaraa yadhaantii ha qaadan qaan weeye ha qaadan qurux male ha qaadan qaan weeye ha qaadan qurux male ha qaadan qiil buu ka dhigan ha qaadan qiil buu ka dhigan ha qaadan qiil buu ka dhigan ha qaadan